naag reer dalal ma guursanin waxaan guursaday naag isaaq ah oo ciid gala ah kusoo dhawaada Kacab Media haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe aad saarto si aad ugu mid noqoto saaxiibadeen like-ta aad taabato asxaabtaada aad u sii sheergalayso commentina aad noo reebto waad mahadsantahay intaad samaysay soo dhawaada asxaabta dhawaan waxaan baahinay muuqaal ku saabsan aabba Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Gadow gaar ahaan magaalada Baardheer ee gobolkaas oo sheegaya in ay ka maqan tahay gabar la yiraahdo Nadiir Nayrus waxa uu sheegay aabahan inuu dhalay isla markaana aabaheed uu yahay Nadiir Nayrus taas dad badan ayaa la yaabay oo baraha bulshada ku taxna arintaas waxa ka soo falcelisay isla markaana aan sii baahinay Nadiir Nayrus oo sheegtay in warkaasi uu yahay mid been abuur isla markaana aabaheed uu joogo isla markaana la yiraahdo Maxamed Ciga aabahan waxa uu sheegay in gabadhaas uu asaga u dhalay mar kale ayuu baraha bulshada ka soo muuqday waxa uu sheegay isla markaana uu beeniyay in gabadhiisa aysan ahayn isla markaana gabar ay ka maqan tahay aabahaasi Soomaaliyeed isla markaana uu u maleynayay in gabadhiisa ay tahay fanaanada caanka ee Nadiir Nayrus baraha bulshada ayuu mar kale ka soo muuqday waraysi laga qaaday ayuu ku muujiyay in been abuur ay tahay isla markaana uu ku qaldamay fanaanada Nadiir Nayrus isagoo raali gelin siiyay isla markaana sheegay in gabar ay ka maqan tahay ahaatee gabadhaas oo hadda Nadiir Nayrus macnaha gabar dad 14 wiil iyo 8 gabadhood baa iga maqan oo ay ku jirto gabadh ay ku jirto hooyadeedna inay burcad tagantaa lii sheegay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaan ka shaqeynaa aniga nin sargaal baan ahay haddana gobolka Gadow ayaan aniga naag reer dalal ma guursanin waxaan guursaday naag isaaq ah oo ciid gala ah waxa weeye gabadhaas Nadiiro waan ku qaldamay 14 boqolka quraanka kariimka ayaa iga raala hadan intii familka oo dhan